axmed madoobe ayaa isagana markiisa wuxuu ka adeeganayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana hadda heshiis hordhac ah oo uga socda magaalada Nairobi cabdirashiid janan taliyihii nabad sugidda ee Jubbaland dowladda federaalka ee u magacawday ila rasmi ah ayaa xaqiijinaya in cabdirashiid janan uu qorsheynayo inuu mar kale u diga rogto dhanka Jubbaland iyo axmed madoobe isla markaana ay wada shaqeyn ay yeeshaan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo heshay xogtaasi ayaa la sheegay inay qorsheynayso in saacadaha soo aadan ay xilka qaadis ku sameyso cabdirashiid janan isla markaana ay ku bedesho sargaal kale loona magacaabi doono xilka taliyaha nabad sugidda ee Jubbaland janan iyo axmed madoobe ayaa muddooyinkii la soo dhaafay oo dhan waxa jiray wada hadallo hoose oo dhex marayay isla markaana ay garwadeen ka ahaayeen rag ganacsato ah iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gadow kuwaas oo la shaqeynaya iminka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe xubnahan ayaa waanwaantooda iyo dhexdhexaadintooda waday muddooyinkii la soo dhaafay oo dhan waxaana ugu dambeyn la filayaa inay heshiis ku gaaraan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya haddii aanay wax iska bedelin sida wada hadalladu ay iminka ku socdaan laakiin marka la gaaro waqtiyadan oo kale oo dhamaado muddo xileedka dowladda federaalka hay'adaheedu ama uu gawaabsi yahay waa wax caadi ah oo soo jireena in la aado dhanka hogaamiyaasha gobolada iyada oo laga raadinayo xilal siyaasadeed iyo awoodo kale oo dheeraada marka muddaxileedka dowladda uu bilow yahay ama cusub yahana dhanka dowladda federaalka ayaa la aadaya qorshahan waa mid soo jireen ka ah siyaasadda Soomaaliya oo sanadihii la soo dhaafay oo aan arkaynay cabdirashiid jananna kuma sii jiro maba ahaba siyaasi meel fadhiista caadiyan waa nin iska gidis badan oo marba meel aada axmedow la shaqeynaya wasiirka amniga oo ahaa Jubbaland waa ka soo tagay waa ku laabay haddana mar kale oo ka soo tagay haddana waa kaasa mar kale wada hadallo ayaa u socday isaga iyo axmed madoobe waxaana la leeyahay waxa ay heshiis ku gaarayaan Nairobi iyada oo siyaasiyiin iyo rag ganacsato ay heshiiskan garwadeen ka yihiin oo maamulo sida uu rajeynayo degmooyinkaasi qaarkood hadda marka laga reebo hal magaalo inta kale axmed madoobe si toos ah gobolka Gadow uma maamulo oo waxa jooga maamulo si toos ah u hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo ka amar qaatay dowladda oo sugaya amniga degmooyinkaasi lama soo oga waxa janan uu ku biirin karo axmed madoobe haddii ay heshiis ku gaaraan magaalada Nairobi dowladuna ay xilka ka qaado cabdirashiid janan laakiin wixii ka soo baxo halka ay wax ku dambeyn doonaan intaba barnaamijyadeena iyo wararkeena kale ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo maxay kula tahay adigu aragtida nala wadaag muuqaalkan like noo saaro si share garay aad ba u mahadsantiin